badda gaadiidka badda wuu dhib badan yahay badduna waa laba cadow marna iyadaad iska eegaysaa marna cadow kalaad iska eegaysaa annagu qasab bay nagu tahay inaan miisaan la shaqayno maaliyadda askarti way joogtaa ninka haysanaya xerada waa kan maaliyadda uu la shaqaynayaa anigu amar baan ku qabaa amarka laysiiye baan isagana siinaya inuu la shaqeeyo maaliyadda haddii ilaahay sababtoo waa mushaharkayagii waa dantayadii waa hawshayadii shaqadaa iyo waajibka anna lay faray baan isagana farayaa isagana saa lay faray ayuunbaynu wada fari doonaa wixii kale hoos isku odhanayna hoos baan isku odhan doonaa haddii ilaahay yidhaaho wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda maaliyaddu habraac bay soo sameeyeen oo ay u sameeyeen ka wada shaqaynta cashuurta badda taasuunbaa kulli lagu dabaqayaa oo lagu shaqaynayaa aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa dadka sharafta iyo qiimaha badan ee lagu soo dhoweeyey magaaladan ceeldaraad shaqaduna qaranka kolba halka laga hayo oon weeye waxaan aad iyo aad ugu dardaarmayaa oon u farayaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga ee ka shaqayn doona xafiiskan inay shaqada qaranka sida ay tahay u qabtaan insha allah aniguna ugu ducaynaynaa nimi ugu muhiimsan dakhligii doonyaha in kor loo qaado dowladnimadeenna ama cashuuraha meel hoose laga soo bilaabay dalka meel kasta hadday berbera taado maanta xarunta ugu weyn ee dakhliga Soomaaliya ka soo baxo iyo goobaha kale meel walba waxa laga soo bilaabay meel hoose saylac baan joogay Haarun kale way la joogay caligaasna way la joogay doonyaha inaanu $50 ka barina ayay taymahay maraakiibta waaweyn aanu $100 iyo $700 ka qaadnaa waqti ahay waa la soo dhaafay in yani markab waliba wuxuu sido la cashuuro iyo doon waliba ayaa la gaari tanna maanta arrintaanu idinka soconnaa waxa weeye aynu soconnaa in doontu waxay sida mitirkii caadiga ahaa la saaro la miisaamo marka la ogaado mitirkii iyo dhiibkii rasmiga ahaa cashuurtii rasmiga ahayd ku dhacaysa laga qaado wixii aqoona ee lagu kordhinayo shaqaalaha wayno joogan qoladii seminaarka inoo fariis waana baraynaa odayaasha waxaan marti uga nahay inay siday haraba gacanta ugu hayaan meesha gacanta ugu hayaan kadib maanta waxaan isugu nimi furitaanka xafiiska wasaaradda horumarinta maaliyadda gaar ahaan kastamka berbera uu si rasmi ah ugu yeelan doono degmadan ceeldaraad imika ka hor shaqo way ka socotay halkan laakiin si toos ah xafiisna ugama furnayn dhammaan wasaaradda maaliyaddu wixii ay adeegyo u baahnaydna lagama helayn laakiin laga bilaabo maanta kastamka ceeldaraad wuu furan yahay isagoo ay u dhammaystiran yihiin wixii uu baahnaa imkaaniyaad xafiisku hadday tahay xafiiskii hadday tahay shaqaalihii isu shaqaynayay cashuurta qabanayay dhammaantood waa furan yihiin hadday tahay isgaadhsiintii maanta way dhammaystiran yihiin hadday tahay gaadiidkii iyo baabuurtii intaa kadib sidaa ay nimanka igu horreyo dhama sheegeen cashuurtu maalinba meel bay maraysay maalinba heer bay soo gaadhaysay mar ay cusbaydoo sidaa uu sheegaya maamuluhu kontonka door la baryaya waa jirtaa maanta gebi ahaan miseylac ilaa ceerigaabo ilaa lowyacaddo kalluumaysiga lacagta laga qaadaya iyo cashuurtu waa wax siman maanta reer ceeldaraad waxaan u sheegaynaa waxay ku xidhan tahay horumarkiinnu iyo isbeddelka magaaladan iyo MCH-ka la doonayo iyo caafimaadka la doonayo haddii aan cashuur la helin dawladdu ay wax ku qabato oo ay ku dhisto MCH-kii oo ay ku dhisto wixii ay u baahnayd degmadani waa cashuurta waxa uu ku xidhan yahay horumarkiinna iyo wax soo saarkiinnu iyo magaalaynta halkaniba iyo wadooyinka aynu ka cabanayno waa runaa si ay deegaanku sheegeen waxa ugu daranayaan meesha ku soo aragnay waxa kow ka wada xumo laakiin wada xumada ka bixi mayno ilaa aynu helno cashuur nagu filan oo aynu wadada ku dhisanno haddaba waxaan idinku dardaarmayaa maanta sida aad u taageertaan xafiiska wasaaradda horumarinta maaliyaddu halka ka furtay iyo cashuur ururinta aad bartaa maanta ku taageertaan ayaa kow ka noqon doonta wax qabadka aad sugaysaan ee leh caafimaadka ee leh wadooyinka marba sida aad uga shaqaysaan buu noqon doonaa laga bilaabo maanta wixii kale ee ay ka cabanayeen ee sida xoolahaas tagana dhammaantood waa isku wada dayaynaa adeeg kasta oo looga baahan yahay cashuur in bartan laga wada helo inkastoo mabdaca imika halkan aanu furnay ahayd kalluumaysiga laakiin wixii wasaaradda horumarinta maalinta looga baahan yahay cashuuraad waa ka wada hirgelinaynaa wixii kale naga dhiman laakiin xafiisku waa shaqaynaya shaqaali waa idin dhamaystiran yihiin imkaaniyaadku waa idin dhamaystiran yihiin dhammaan wixii looga baahnaa wasaaradda horumarinta maaliyaddu waa ku dhammaystirantahay
deegaankana waxaan kula dardaarmayaa sidii horeba u taageeri jireen waa run odayaashu markii hore ay halkan joogay iyagaa nagala qayb qaadanaya cashuur ururinta iyagaa lacagta soo qaadi jiray iyagaanu kala shaqayn jirnay laakiin maanta wasaaraddii maaliyaddu awood buuxda oo u yeelatay hawshaa inaannu idinka furanno idinkana xilkaa idinka wareejinno oon hawshaa idinka kor qaadno runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sidii wacnayd ee aad noola soo shaqayseen iyo sidii wacnayd soo taageerteen qaar ka mid a odayaasha ku dhaqan deegaanka ceeldaraad ee dhinaca xeebta bari ee gobolka saaxil ayaa iyaguna si weyn u soo dhoweeyey xafiiskan wasaaradda horumarinta maaliyaddu gaar ahaanna waaxda kastamyadu ay ka furtay deegaankaasi aad baan ilmaadareedin ku mahad celinaynaa nin waliba inta uu joogo wuxuu u qabtaaba waxqabad u ah waxqabadkii horena waa u hayseen waa nala qabanayseen halkaasaa noogu imanayseen gaadiidkaa cashuurayseen haddii ilaahay ka dhigo dhib iyo dheef waa nala dhinac joogteen maantana waxa keenteen waxaanu ahayn garab rarato waayo inamadu haddii alla ka dhigo cashuurta markay qaadaan dee gaadhaa sidoo lacagta markiiba waa soo xerayn jireen dib bay noogu soo noqon jireen si wacan bay iyaguna noola shaqayn jireen ta dawladdana waa ka shaqaynayeen ta degaanka iyo magaaladana waa nagala shaqaynayeen dawladda la joogtuun bay ahaayeen maanta waxay noo qabteen ilaahay baa mahad iska leh iyaguna haddii naloo keenay inamadii oo xafiiskii la dejiyey oo kastankii naloo furay oo xafiiskii shaqaynayo oo inamadii shaqaynayaan oo gogasha u taallo inamadii habeenka nala seexan jiray bila halkaa ay jiifayaan waa u mahad celinaynaa maanta waxaa naloo keenay wasaaradda maaliyadda ay noo keentay kastankii cashuuraha somalilan kastan rasmi ah ayaa halkaa nalooga daafuray kastankaa waanu soo dhoweynay aad iyo aad xilligu bishii tobnaad 14 weeye saaka muddadaas kastankaas baanu guddoominay